asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaada cashar kale oo luqada ingiriisiga. Haddii aad rabtid casharkan inaad ka faa'iidaysatid, please keep watching. Sii fiirso casharka ilaa dhammaadkiisa. Magacayga waa Cabdi. Aan ku bilaabo fasiraada casharka. How to say thanks and you are welcome. Sida loo dhaho mahadsanid iyo adiga mudan. How to say thanks and you are welcome. Sida loo dhaho mahadsanid iyo adiga mudan. Marka waa 5 qayb aad u dhigi kartid mahadsanid. Waxaa leedahay thank you, mahadsanid. Thanks, waxaa leedahay mahadsanid. Thank you very much, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Thanks a lot, aad ayaa u mahadsan tahay. Many thanks, mahad badan ha kaa gaarto. Ayadana la mid ah, aad ayaa u mahadsan tahay. Marka 5tan qayb waxaa la dhahaa qofka markuu wax fiican kuu sameeyo oo kaa farxiyo, wax fiican wanaagsan aad leedahay kuu sameeyo, waxaa leedahay thank you, mahadsanid. waxaa kaloo dhihi kartaa thanks, mahadsanid. inkastoo thanks badanaa asxaabta ay isticmaalaan, laakiin markaa rabtid xafiisyada iyo tagtid oo si professional ah aad thank you very much ayaa leedahay. Many thanks ama waxaa leedahay thanks a lot. Thank you na waa dhihi kartaa. Marka waxaa la isticmaalaa 5tan erey ayuu qof kasta isticmaalaa mar kasta uu luqadda ingiriisiga oo uu ku dhahayo mahadsanid. 5tan mid ka mid ah ayuu isticmaalaa. 5tina maanta waxaan rajaynayaa inaad baratay. Aan ku celiyo fasiraada how to say thanks and you are welcome. Sidaa u dhihi lahayd mahadsanid iyo adiga mudan. waxaa u dhihi kartaa 5tan qayb. Thank you, mahadsanid. Thanks, mahadsanid. Thank you very much, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Thanks a lot, aad ayaa u mahadsan tahay. Many thanks, mahad badan ha kaa gaarto ama aad ayaa u mahadsan tahay. Marka qaybta labaad aan u gudubno ayadoo jumlo ay ku jiraan ereydan sida qofka thanks loo dhaho. waxaa lagu dhahay do you want another cup of tea? ma rabtaa koob kale oo shaah ah? waxaa leedahay haddii aad rabin no, maya. haddii aad rabtin waxaa leedahay yes, ha. laakiin maxaa kaloo sii raacinaysaa? waxaa raacinaysaa no, maya, but laakiin thanks for asking me. waa ku mahadsan tahay inaa i weydiisid. haddii aad rabin sidaas ayaa leedahay. haddii aad rabtin waxaa leedahay yes, ha. Thank you, mahadsanid. mar adigoo soo gaabinayo waxaa dhihi kartaa no, maya, thank you, mahadsanid. ama no, thanks. No, maya, thanks, mahadsanid. waa 5ta aad soo baratay mid ka mid ah ayaa dhehaysaa. ama waxaa dhihi kartaa no, thank you very much. ama waxaa dhihi kartaa yes, thank you very much. ama waxaa kaloo dhihi kartaa yes, thanks a lot. marka intaas waa isla fahnay. qaybta kale jumlada kale aan u gudubno. Thanks, mahadsanid all of you dhammaantiin for your help, caawinitaankiina of our wedding, arooskeena. Thanks, mahadsanid all of you, mahadsanidin all of you dhammaantiina for your help, caawinitaanka of our wedding, arooskeena. marka jumlad kale ayadoo ku jirto haddana. How are you? sidee tahay? Fine, waa fiicanahay. Thanks, mahadsanid. How are you? sidee tahay? Fine, waa fiicanahay. Thanks, mahadsanid. waxaa kaloo dhihi kartaa jumlad kale ayadana markuu qof imaado xafladaada markuu imaado waxaa dhahaysaa thank you for coming. waa ku mahadsan tahay imaanshahaaga my party, xafladeeda. Thank you for coming my party. waa ku mahadsan tahay imaanshaha xafladeeda. aan ku celiyo do you want ma rabtaa another cup of tea? koob kale oo shaahi ah. No, maya, but laakiin thanks, waa ku mahadsan tahay for asking me inaa i weydiisid. Yes, ha, waa rabaa. Thank you, mahadsanid. No, maya, ma rabi. Thank you, mahadsanid. Thanks all of you. waa mahadsantiin dhammaantiina for your help, caawinitaanka of our wedding,
arooskeena. How are you? Sidee tahay? Fine, waa fiicanahay. Thanks, mahadsanid. Thank you for coming. Waa ku mahadsantahay imaanshaha my party, xafladeeda. Marka thank you markuu qofka ku dhaco sida ugu jawaab lahayd ayaa haddana noo soo socota. Ila soco cashirka sii daawo. It is okay, waa caadi. Wuxuu ku dhahay thank you very much. Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. Waxaa leedahay, waxaa ugu jawaabi kartaa it is okay. Okay waaye. It is okay, okay waaye. Ama waxaa ugu jawaabi kartaa you are welcome. Wuxuu ku dhahay masalan thanks a lot. Waxaa dhihi kartaa you are welcome. Ama wuxuu ku dhahay thank you very much. Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay. Waxaa u samaysay darteed. Marka waxaa leedahay don't mention it. Hashe sheegin, ha ku hadlin. Af suuqa Soomaaliga hadda waxaa lahaa marka wax qabato qofka ku dhaho mahadsanid, ha ku leedahay ha ku hadlin. Waxaas wax la sheega ma aha. Ha sheegin. Don't mention it. Ingiriiskana waa sidaas oo kale. Luqad kasta waxaas way leeyihiin. Marka don't mention it. Ha sheegin. It was nothing. Waxba ma ahayn. It was nothing. Wuxuu ku dhahay thank you very much. Waxaa leedahay it was nothing. Waxba ma ahayn waxaas. Waxba ma ahayn waxaas. It was nothing. Ama wuxuu ku dhahay thanks, mahadsanid. Waxaa leedahay you are deserved. You are deserved. Waa u qalantaa. You are deserved. Waa u qalantaa. Waxaa kaloo dhihi kartaa glad to help you. Waa ku faraxsanahay inaan ku caawiyo. Glad to help you. Waa ku faraxsanahay inaan ku caawiyo. Marka waxaa ugu jawaabtay sidaan aa ugu jawaabaysaa. Jumlad ka mid ah jumladahan ayaad qaadan doontaa. Inkastoo inta badan dadka ay ugu jawaabaan you are welcome ay ugu jawaabaan. Adigaa mudan. Waa mahadsantahay markii la dhaho waxay ugu jawaabaan you are welcome. Haddana waa okay. Haddaa dhahday it is okay. Caadi okay waaye. Don't mention it. Ha sheegin. Don't mention it. Ha sheegin. Ha ku hadlin. Ama waxaa kaloo dhihi kartaa don't mention it. Wax la sheega maaha. Wax la sheega maaha. It was nothing. Waxba ma ahayn. It was nothing. Waxba ma ahayn. You are deserved. You are deserved. Waa u qalantaa. Qofkii markaas saas dhahday you are deserved waa u qalantaa. Oo sii farxaa. Qof ku dhow ayuu sii noqonaya. Ama glad to help you. Waa ku faraxsanahay inaan ku caawiyo. Glad to help you. Waa ku faraxsanahay inaan ku caawiyo. Marka waxaan rajeynaa cashirkan inaad ka wada faa'iidaysateen. Intaan ku kulmi doono cashirkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.